ninkan isagoo telefoon iskaga hadlaya waxa loo dhiibay waraaqadan kadibna isagoo uu qabsanaya markuu isku dayo inuu waraaqada akhriyo waxa ku qoran 2 saacadood kadib inuu isaga noqonayo hor ama inuu dhimanayo laakiin markuu isku dayo inuu hamar gadaal uu fiiriyo ninkii gadaashiisa taagnaan wuxuu noqday isaga oo idil bahoror adigana daawadaha ilaahay muuqaalka ina like noo saarto markaas waxna waraaqadu tutuura wuxuu ku tuuraa meeshaan xafiiskiisa uu iska imaanaya welibana isagoo shaqaysanaya markaas uu mar waxa ku soo dhacay waraaqadii uu arkay waxaanu ku qoran kaliya oo dhiman tahay hal saac markaas uu aaminay waxa ay tahay brank marka waraaqada waa laba uu isku tuuraa hadana markale markuu meel furo isku dayo inuu furo waxa soo bixis waraaqad ku qoran 30 daqiiqo kaliya oo dhiman tahay ninkii markaan argagax liyaab ay noqonaysa arintaani markuu ka fiiriyo waraaqada meesha ku tuuran ma ku jirto waraaqada meekle ay ku jirtaa waxaana wax cajiib ah adigana daawadaha ilaahay muuqaalka ina like noo saarto markaas uu xariifka istaaga isagoo waraaqada jeexjeexa wuxuu ku tuuray suuliga kadibna biyo ayuu raacinaya bal hadda ninkaan waxa ku dhici doona kadibna uu soo baxay markale jeebkiisa markuu taabtayna wuxuu ku arkay waraaqad ay ku qoran tahay kaliya oo dhiman tahay 15 daqiiqo markii la dan waraaqada uu tuuray oo jeexjeexaya markuu markale ku soo laabtay xafiiskiisa meelaha wuxuu ka raadinaya waraaqada laakiin uu kawaayay ilaa markale uu taabto jeebkiisa markii uu kawaayo dhammaan meelaha ay markaas ninkaan nafta ku soo laabanaysa wuxuu dhahay alxamdulillah iga tagdhay camal markale laakiin markuu meeshaan uu furo wuxuu ku arkay waraaqada ay ku qoran tahay 5 daqiiqo oo kaliya inay u harsan tahay hadana markale waraaqada isaga waxa ka dafaysa gabadhaas iyadoo la carray isagana uu leeyahay arintan waxay noqon doontaa ayuu isdhaaya gabadhaan markale wuxuu isku day inuu meelaha ka raadiyo laakiin uu kawaaya marka ninkaan wuxuu dareemayaa xabsi iyo argagax fara badan isagoo ka baqay inuu geeriyoodo inuu noqdo horror markaas uu isku day inuu soo qabsado waraaqadan dhammaan waxa ku wada qoran inay u dhiman yihiin kaliya 2 daqiiqadood